kabtanka xaalku ku xun yahay Axmed Fiqi ayaa kulan saaxiibtinimo u martiyay kabtankii hore ee kulan natiijadiisa lagu shaaciyay Facebook. jariirada Mark ayaa ku waramaysa in qosolkii uu caanka ku ahaa laacibka Xasan Sheekh bedelkeeda uu qaatay kabtan Fiqi, taasoo kulankan u ekeysiinaysa mid riya ah. laakiin natiijo walba oo ka soo baxda kulankan ayaan raali gelin doonin macalinka xulka Farmaajo sida ay qabto Gada Post. kooxda ku cusub horyaalka dalkeena ee horu socod ayaa xawaara ku sii wada iibsashada xidigaha ugu tunka weyn kooxaha baarlamaanka iyo xukuumadda. kabtanka kooxdan Cabdirashiid Xidig ayaa Khamiistii u sheegay warbaahinta in qaab ciyaareedkoodu uu la mid yahay kooxda ku cusub haatan horyaalka Faransa kuna guuleysatay Ligue 1 dalkaasi, taasoo laga dhex aasaasay isla baarlamaanka dhexdiisa. inkastoo laacibkan uusan ku hadlin luqadda Faransiiska, haddana waxaa laga yaabaa in inboxkiisa ugu soo dhacaan hambali kaga timid tababaraha cusub ee Faransa Emmanuel Macron. لاعبينta Amisom ayaa wali isticmaalaya gigida Maka al-Mukarrama, taasoo dhabarka aadinaysa amarka kabtanka kooxda gobolka Thabit Cabdi. laakiin afayeen u hadla naadigan oo haddii xitaa qoriga iska dhigaan lagu dhiiran karin ayaa u sheegay warbaahinta in magaca Banaadir ay u qaateen magaalo kale maadaama iyagu buuggooda ku qoran tahay Banaadir. FIFA ayaa baaraysa qarashaadka waalida ah ee ku baxay arooskii dalmaryare iyo Huda. xiriirka ayaa baaraya in lacagta xadidan ee xidigaasi marka laga gooyo canshuurta aysan u saamaxeen aroos sharafeed noocaasa. laakiin xiriirka ayaana ilowsaneen in Huda oo ka soo jeeda qoys tujaar ah xaq u yeelan karta in xidig ku jira mishaariyadiisa fursad aroos oo weyn, taasoo soo afjaraysa baaritaanka FIFA oo haddii ay ku sii socdaan noqon karta faragashi sharciga tujaarta oo fasaxaya in lacagahooda farxad ugu abuuri karaan kuwa ku haminaya gabdhahooda. xidigaha England Show iyo Iidle Yare oo la amakaagsan arooska dalmar ayaa isweydiinaya qarniga arooska qarniga waa saaxiibkii oo hambaliyana laakiin waxa laga rabay meesha uu ka imaaday abaata taalo uu og yahay haye siliga Amerikaanka haye Madiino meesha qof ugu gaajeysan haye ma lacagta anaga soo dhib. laacibkan ku caajisay horyaalka Kenya ayaa jeclaan lahaa in lacagahaasi loo soo diray isaga si qaanadihiisa uu uga saaro labiska kokombayga. sidoo kale laacibada England Show ayaa iyana sheegtay in kaliya ay ku filnaan lahayd lacagta ku baxday duubista kaamirada. afayeen u hadlay dalmaryare ayaa kaftanka Sportiska u xaqiijiyay in haddii England iyo Iidle wada gaaraan heshiis horu dhac ah loo maalgelin doono sida Man City ka dhisan Kenya. markana xubinteennii wargeysyada iyo waxa ay qoreen saakay. kabtanka Puntland Cabdiweli Gaas ayaa wali isweydiinaya in isagoo aan qabin wax dhaawac ah ama daal ah uu keed galo kulankii xulkeena iyo Great Britain ku ciyaareen London isbuucii hore. laacibka Cabdigood ayaa wali diidan in la barbar dhigo xidigta Farxiye Kabayare, taasoo si buuxda ula wareegta hawshiisa. laakiin Daahir Ya Shamis ayaa u sheegay fanaanadaasi inay raadsato koox leh TV baahiye barnaamijyadeeda. kabtanka kooxda baarlamaanka Jawaari ayaa dalbada daqiiqada nasiina ah isagoona ku daalay kubad dhex ku jira ahayd markii saddexda gees ka kala istaageen laacibinta Cabdirashiid Xidig, kabtan Farmaajo iyo qaranka Kenya oo dhinaca. kabitaanaha kooxda Soomaalida ee South Africa Jirda Xuseen ayaa la guddoonsiiyay kaab kala dhaxeeyay dhigooda South Africa. wiilkan ayaa sidoo kale wax ku lahaa sharciga kala xakameeya South Afrikaanka iyo bulshada reer Kaaran. intaas ayaynu ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeeni kaftanka Sportiska. halku dhiga barnaamijka iyaguna waa lagu xasuusta ayaa ka horeysa tan inta barnaamij noocan ah ku kulmi doono waa Cabdiqaadir Boos oo idinkaga tagaya heestii sanadkii yaa iyo xidiga qaaradda Yurub guuleedsanba daawasho wacan.